بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel aad joogtaan ba walaalayaal ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan rabo inaan kaga hadalno xayaatal qulub nolosha qalbiga ama maxaa nooleeya qalbigii dhintay engegay ee qallafay si aynu ogaano arrinta waxaan soo qaadanaynaa nin kamid ahaa culimadii iyo taabiciintii ninkaas oo raadinaya qalbigiisa siduu u nooleyn lahaa ninka waxa loo yaqaanay Maymuun bin Mahraan rahimahullahu wa radiya anhu wuxuu nin taabiciya oo saxaabada rasuulka la kulmay marka oday weynna wuu ahaa wuxuu wiilkiisii ku yiri oo la dhaho Amr ibn Maymuun aabba waxaad ii kaxaysaa wadaadka ama sheekha loo yaqaan Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi wiilkii oo loo yaqaan Amr ibn Maymuun ayaa aabihii soo kaxeeyay aabihii marka xagga aragga ayaanu si fiican wax uga arkaynin marka wuxuu yiri Amr ibn Maymuun aabahay baan kaxeeyay meel maaragtay biyo ah ama wabi ah baan naga soo horbaxday deetana wuxuu yiri dhabarkayga ayaan maaragtay waabahay uu kaga talaabayo buundo ayuu noqday wiilkii subhanallah aabihina maaragtay sidii uu kaga talaabay biyo waa mid ku tusinaysa wiilkaasi sidoo baari ugu ahaa aabihii dabadeedna wuxuu yiri odaygii baa wuxuu ku garaacay albaabkii Hasan al-Basri gurigiisa marka waxa ka furtay gabadh jaariya waa gabadh yar baa ka furtay kaas waxa tiri man war waa kuma dabadeedna wuxuu yiri Maymuun ibn Mahraan dabadeedna waxay tiri gabadhii yaa shaqay war ninkaaga nasiibka xunow ayaanka daranow wali ma noosh ma zamankan iyo waqtigan xun ayad wali noosh deetana odaygii wuxuu bilaabay inuu oohin ayuu maaragtay odaygii bilaabay subhanallah oohintii baa markaa waxa ku soo kacay Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi oo isaguna taabici weyn oo jaliil oo la yaqaano macruuf ah marka Hasan al-Basri ayaa markii uu arkay Maymuun ibn Mahraan ayuu mucaanaqay dabadeedna wuu salaamay markaasuu yiri maxaa Maymuun uu ku keenay deetana Maymuun baa wuxuu yiri yaa Aba Saciid waa kuniyo uu leeyahay Hasan al-Basri kuniyadiisi way aabihii dhalay Saciidow waxa engegay qalbigii waxa ay qallafay qalbigii ayaa iga dhintay oo qallafay waxaan rabaa inaad ii sheegto wax qalbiga ii jilciya ma uu sooma si qalbigu ii jilco deetana Hasan al-Basri wuxuu akhriyay aayad quraana oo ku jirta suuratu shu'ara qaala marka wuxuu dhahay wadaadkii ama sheekhi loo yaqaan Hasan al-Basri rahimahullah aayadan uu akhriyay afara'ayta in matta'nahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون آيات كامركي وآخري آيات شيخي ميمون بن مهران وصوحي أغمي عليه كوم وقلي إلا أي مركا وحوي حسن البصري ولقته وشيدي سيدا مركا نافك وبختيو وكلامارتي إن لغها لقبته saasoo kale ayaa qof dhintay oo kale ayuu lugta soo qabtay kadibna wuu miirsaday markaasuu ka soo baxay gurigii wiilkii markii ay israaceen wiilkiisii Amr ibn Maymuun la dhaho ayaa wuxuu yiri aabe ninkani ma Hasan ba sura Hasan weey Hasan al-Basri waa caalim weyn oo la yaqaan Hasan al-Basri rahimahullah kasuuri aabe sidan ba manaamoodayba yaani wax intan ka weyn baan ka filayay cilmi intan ka weyn odaygii marka Maymuun ibn Mahraan ayaa wiilkiisii oo Amru ahaabo feed halka laabta kaga dhuftay deetana wuxuu akhriyay Hasan aayado quraana oo hadaad ku tadabburi lahayd oo ku fakari lahayd waad suuxi lahayd buu yiri aayadku maxay lahaayeen aayadku waxay lahaayeen afara'ayta in matta'nahum sinin bal ka waran xaaladda markaanu cimri dheer sinay siniin sanawaad buu noolaaday muddo dheer buu noolaaday hadduu doono mulki iyo boqortooyo iyo sharafna wuu ku noolaa
bale ee haddaad doonto waxaad ka dhigtaa qofka bani aadamka ahee noolaa fircoon oo isagu ilaah ahaa la caabudo darajo bani aadamku uu ka gaadho adduunyadan ruux gaal ah waxa weeye la caabudo saa darteed baa fircoon cubida min duuni illah ilaahay sokadii baa la caabudi jiray heerkaasuu boqornimo uu ka gaadhay subxaan allah haddaad doonto maal iyo xoolo ka gaadh qaaruun maalqabeennada adduunyada oo dhan hadday isu tagaan jeebadiisa wixii ku jiray ma gaadhi karaan subxaan allah la ilaaha illa allah maal waxaad doonaysid ka gaadh cimri intaad doonaysid ka gaadh haba lagu caabudo adduunyadan intaad joogtid sanawaad sii ku noolow oo ku raaxaysa adduunyadan ilaahay wuxuu yidhi uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun uma jaa'ahum waxa u yimi maa kaanuu yuucaduuna wixii loogu ballanqaaday ee loogu sheekaynayey ee axdiga ilaahay uu ku galay oo ah mawdkii iyo geeridii wuu dhintay yacni maxaad yaalla adduunyadii subxaan allah waad ka dhimatay god yar buu ka galay maalkiisii iyo xoolihiisii iyo sharaftiisii iyo wixiiba god yar buu ka galay subxaan allah ilaahay wuxuu yidhi maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun waxba umay tarin wixii ay ku raaxaysan jireen adduunyada maal iyo ubad iyo xaruur iyo sharaf iyo boqortooyo wax allaale waxay u tartay ma jirto haba yaraatee aayaadkaas min dikri alxakiim ka mida xuska ilaaha weyne xakiimka ah ayaa qalbigii shiikhaa loo yaqaano maymuun ibnu mahraan gilgilay dabadeedna wuu suuxay waaya haddaba waxaynu u imanaynaa walaalayaal culummadii innaga inaga horraysay dadkii soo jeeday ee aan hurdin marka ay quluubtooda iyo qalbigooda ay ka dareemaan adayg ama qallafsanaan ama inaanu jilicsanayn oo khushuucdii ay ku yar tahay wuxuu ka soo safrayaa magaalo ilaa magaalo si uu cid uga aqoon badan u weydiiyo qalbigayga cudur baa ku dhacay ama dhibaata ama hawl baa ku timiye sidee ayaan u daaweeyaa sidee u cilaajiyaa maxaa haddaba daaweynaya qalbigii bukay qalbigii engegay qalbigii markaa dhagaxa noqday ama kaba dareba xagga dhagaxa adkaanta waayo ilaahay wuxuu noo sheegay dad quluubtoodu ay ka adagtay xitaa dhagaxaanta uma qasad quluubuhum min bacdi dalik intaa kadib yahuudda qalbiyadoodiibaa adkaaday fa hiya kalxijaara waxaad moodaa dhagax ilaahay wuxuu ihi maya kaba daran aw ashad ka daran dhagaxa xagga dhagax waa ilaahay tusaalooyin buu bixiye wuxuu ihi dhagxaanta qaar ka mid a webiyaa ka dilaaca qaarna biyaa ka soo burqada qaarna cabsi ay ilaahay ka cabsanayaan ayay soo hoobtaan oo halka u sarraysa intay ka soo hoobtaan bay dhulka ku dhacaan marka waxaa jira dad quluubtoodu ay ka adag tahay kana engegsan tahay dhagax subxaan allah maxaa nooleynaya qalbigu ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi fii suurati alanfaal yaa ayuha aladiina aamanuu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ربنا وحولي سبحانه وتعالى كو إله رميو كو إيمانك لقاها ليو كو مؤمنين تأهو استجيبوا لله إلهي أجيبه إلهي هي أجيبه وللرسول أي الرسول كذا أجيبه قورما إذا دعاكم لما يحييكم مركا أو إلهي يا رسول كيسيدون كيران لما يحييكم وحيد النوليني دين تويكم نولينيسان إجابة هذا أجيبه إلهي يا رسول كيسا أياد نولش قلبك كهليس مركا حياة القلب نولش هذين قلبك أقوين النولادو oo nolol rasmiya ku noolaado oo engegan iyo dhagaxnimadan iyo maaragtay qalafsanaantan aad ka cabanaysa aad ka baxdo waxa lagu helayaa istijaaba lillahi walirrasuul ilaahi ya rasuulkiisa ajiibto ood ku ajiibto waxay kugu nooleynayaan oo ah dikriga ilaahi iyo qur'aan akhrinta iyo taacada ilaahi iyo taacada rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ilaahi wuxuu isagoo sii wada aayadii wa'lamu ogsoonaada dadow oo garta أن الله يحول بين المرء وقلبه إلهي وحو كلا دحجرها قفك إيا قلبكيس إلهي سيدو دونو قلبك وقلبي كرا وروغي كرا
qalbigaaga wuu ku hanuunin karaa wuuna ku baadiyaysiin karaa subxaan allah rasuulka waxaa laga wariyay xadiis saxiix inuu nebigu ku ducaysan jiray sala allahu calayhi wasalam oo uu dhihi jiray اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك إله قلبي قد قدية رقرقو قلبي وحاد كسكتا ضاعت هذا إله كسك استقامة إله استقامة يتوصنان تيقصك بو إله ويدي سنجر إلا يا صحابة يا ويديين ويدهن يا رسول الله نحن آمنا بك رسولك له وانك آمني ووانك الرميني وما قلبيدا يدا ايادو cabsanaysa in la gadiyo oo la rogrogo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam innal qulub bayna isba'ayn min asabi'ir rahman qalbiyada bani aadamku waxay ku jiraanba laba farood oo kamida faraha ilaahay subhanahu wa ta'ala yuqallibuha kayfa yasha'u sidu doonu qalliba ku doonu ku hanuuninaya ku doonana ku baadiyaysiinaya